الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بميل والبض عالم كجوكتان كسر دواء ورئيس جارة وأنا لا يلنينو فنان كأما أبوان كلمة أو اسمه مجلس هاي عبد الكريم محمد يوسف أو عن عاصمة أوسلو ورئيس كلية يلنينو إسلام كان كسولابتي ودنكي سوماليا دنكا برنامج كاميرا دو حاجة ساعدينيا عبد القادر أبتدون iyo waliba anigoo sumsumaya wareysiga idin qaadaya meel kastood caalamka joogtaana daawasho haboon ruxmeeyeen taasoo waliba dhacday waliba wiigi la soo dhaafay ka hor laba wiig ayaa haddana waxa dhacday gabadh in la jarjaro oo digsi lagu rido waxaad ii sheegaysaa in wadanka ammaan uu ka jiro dhacdooyinka ugu cadcad ee ka dhacaana waa mid dumarka lagu waxyeelayo ama caruurta kuwa siiba waliba berimageydada ah maxaad iiga sheegi kartaa marka arrimaha noocaas ah wallahi horto adduunyada meel wax ka dhicin iska dhaaf Soomaaliya hadda dawlad iyo siyaasad iyo maamul goboleed iyo xisbi al-shabaab la dhaho iyo dawlad iyo conflict ka dhaxay dagaalamaya wadamadan aan lagu dagaalamay Norway oo cid ku dagaalamaysa la meeqa dhacda ka dhacday in ilmihiisa laay nin naagtiisa idoo meeda baawar ku wato mid ninkeeda dishay waxa markasta adduunka London Ingiriiska u joogtay maalin kasta waxa ka dhaca ashadaan tada lagu dilaa marka dilka meel kasta ka dhaca laakiin markaan kala hadlo cimilada guud iyo dadka si u dhaqan yihiin hadda qafsiga dadka laga mugoynayo sig meel kasta jooga wadankan uu jooga nin hadda ilmihiisa naagtiisa ku dilo wadanka ogta dhacdo ugu dambeysay marka dilka meel kasta ka dhaca laakiin waxaan ka hadlaa caafimaad ahaan waxaan dareemay in aad u caafimaado cunto fresh ah cuno anu maskaxdayda wixii ku buuxay buuq ka soo baxay anu dadka jecelna soo laabto wadanka la aad la ma soo helan farxadaas qorshahaaga ma ku jirtaa inaad wadankii degto aad isbedelka hadda haduu dhaco dawladda ay isbedesho waxaan jeclahay inaan wadankii ku laabto wadanka dhex shaqeeyo waan ku tala jiraa isbedel noocee ah hadda conflictiga siyaasadda la isku haysto markay dhan u jihado markii hadda isqabsiga siyaasadda aad u batay dawladdii 4 sano ay jirtay waxay ku dhameystay maxaa la critic waxa la oo siyaasad ahaan dawladdu oo macnaha Soomaaliya oo ugu xumeed oo la critic gareeyo amba laga hor yimaado amba isfaham waan shacabka dawladda waay marka waxaan jeclaan lahaa in maamul goboleedyada iyo wadankii dawladda isfahmiso dhaxe oo wixii isku soo jiido in Ilaahay waqti u dhalayo inkastay wax qabadkeedan wax badan ay dawladdu hor qaban ay qabatay wax badan haddana oo qaladna waa ka muuqda sababtoo ah waxa dawladdu waxa loo baahan yahay in dawladdu dhex noqoto wadanka dhan ay isku xirto hadda tira maanta ninkayga xunaa tuura hadda farteeda xunaa gooynaa marka waxaan jeclaan lahaa in boogol isku dhayaan la isfahmo loo daneeyo hooyada masaakiinta ayaay jidku gadanayso ilmaha agoonta looga dhintay ee beelanayso wallahi maalinta xamar dagaalka dhacay waa taagnaa waxa dhacday dad aan qixi karin baawurna raaxi karin ilmahooda ka haysta markaasay lugeynaa meel ay degaan iyo waxa xataa gaari ma raaxi karto sababtoo qatulyaankeeda wuxuu ahay maalinta inay yaay gadasii jidka fadhiisto maartay dadkaas lagu dhex dagaalamo oo maartay dagaalkii ka sameeyay nin dhergay oo xoolahooda cunay oo hotel dhex jiifo oo maartay kala arag gabadh haweenaas masaakiinta nabad u diiday marka waxaan jeclaan lahaa in maartay taas ay dadweynaha meel ka soo wajjeestaan ay u arkaan una daneeyaan dadka yatiinta masaakiinta iyo ciyaalka iyo hooyooyinka in loo daneeyo inta badan waxaa la sheegaa in ay qaraxyadu la beegsado cid alaale cidii la doonayo sax waxa kale oo jirta in la dhaho qaraxyada qaar waxa fangareeya ganacsatada waxa ka dambeeya qaarkood isla maaragtay ciidamada amniga iyadoo aan loogu talagelin in xaslooni wadanka uu helo maxaad ka dhihileed arrinta maxaad ka ogtahay qaraxyada dadka la beegsado iyo dhibaatooyinka inta badan ka dhaca si guudna loo ogyahay wallahi su'aasha sababta wuxuu ku fiicnaaday oo political science soo bartay amba wadanka amniga qaybta amniga ka shaqeeyo ama nabad sugidda noqdo ama military noqdo inay weydiiso laakiin aniga aan dadweynaha kamid ahay wixii dhacana kulli waxa u jeedaa dhibkooda inuu qaadanayo uu ku dhacaynin dadka ishaysto ay ku dhacayaan caruurta iyo dumarka taas aan u jeedaa marka waxa la loo naxariisto labada dhinac oo ishaystaan bal maartay ha fiiriyaan caruurta iyo dumarka ha u naxaa maxaa yeelay meeshii wax ka dhacaan kuma dhinto ninka dawladda u shaqeeya ama kan ka soo horjeedo kuma dhinto boqolkiiba hal waxa ku dhinto waa dadweynaha oo masaakiinta ah
ودريقة ياعي marka taas un baan arkaa laakiin meeshii ka soo jeeday meeshii ka socdo hadda cidii loo xil saaray in laga wareysta ficnaaleed arintaas waxaan rabaa inaan halkan wax ka su'aal ku weydiiyo oo aan ku ogaado sida aynu ogsoonahay dadka birimageedada ahi waa kuwa u baahan mar walba in la garab galo adigu ka shakhsi ahaan haddii gabadh Soomaaliyeed iyo adiga naftaada lagu yiraahdo keed badbaadin lahayd ra'yiga والله نفتي wax iga horeeyay malaha ku warayso nafteedu wax iga horeeyay malaha taas macnaheedu waxay tahay haddii hooyada ama walaasha ama ehelkaaga qof kamid ah xataa qofka naftiisa wax naftaada ka hormarin lahayd naftiisa inuu badbaadiyo waa markaas wax kale badbaadi karo يعني قف من آذن يفط نفتيس إلا جول قف أقلان كرمجة هاي اللي والدك أي ولا شيء نجاك كسوق على سنة حتى أنا هديله قدهم أنت غيرك قاعد منا أديك كور ورحلة أنا هلا يصير حاجة نسيجو إسلام كلا عروسة حكت على الله مركا قف نفتيس الدور لا أرتميته لكن لا يمارس دبته آمين إلهي waxaan ka rajeynaynaa in gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ee ragga Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala kulma in Ilaahay uu marxaladooda inta ay heerkay ku sugan tahay maanta heer ka duwan u bedelo أنا كيف أدرسنا فرصة دي ذا وحرة أنا أنت كسلامه صاحبتي أنت كسر عن سوق الكوب كرن لكن تذك يعني أنا يقدر أبونا دي ذا مسوشين دي ذا أصحابتي ذا كل وان سلامة حكى سلامة عبد الشريف جامع شغله صاحبك على إلهي ما تحسيه إلهي دبك يستنى إلهي كعقابه أنا فرصة دي فائدة سنة ولكن قالع ولما دام هشت بدم بيصدق عن برامج كسر دري أصيل لحكي إيسار إيسمي وسلامة أبوانكي بشر على أمير وسلامة مسوشين دي ذا وسلامة أنت موقي أتقان وسلامة عيالك وسلامين وأدين سلامة adiga ku salaama TV-ga waa salaama aad baad mahadsantahay runtii aad baad mahadsantahay waa hagaag dhegeystayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynay wareysigii aan la yeelanaynay Kalimow waxaan ka codsanaynaa inaad ka raali ahaato Kalimow su'aashii kadiska ahayd ee maaragtay shakhsiyadaada aan ku tijaabinay daawada dhegeyste tan intaaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan lamid ah waa dhankii kaameradii abtiyo ama abtidoon iyo anigoo ah Samsam oo idin leh dhamaantii isku duuban aad baan idin salaaminaa kulanti dambe oo xiiso leh